Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Saaxiibadena qiimaha badan ee ku xidhan barteenan YouTube-ka ee Cabdilla Deeqsi waxaan idin haynaa maanta arrinta Alibaba iyo Ayush miyay kala tageen mise waa wax beena waxa ay faafinayaan dadka baraha bulshada isticmaala. Toddobaadkii la soo dhaafay amba toddobaadkan aan ku jiro gudihiisaba waxa barta TikTok si weyn loogu hadlayay inay kala tageen Ayush iyo Alibaba. balse arrintan oon daraasaynay xogna aan idinka hayno ayaan maanta idinla wadaagaynaa. Marka hore waxaan idinka codsanaynaa inaad videoga like saartaan una share gareysaan saaxiibadiina kale ee ku xidhan baraha bulshada sida YouTube, Facebook iyo waliba TikTok, Instagram oon muuqaalka dhammaantiiba ka baahin doono. Saaxiibayaal nala socda barnaamijkana like gareeya, asxaabtiina la wadaaga, comment-kana nagu wadaaga wixii aad idinkuna talo iyo tusaale siinaysaan dadka faafinaya beenaha noocan oo kala ah. haddaba arrintan oon maanta xaqiiqadaba idinka hayno ayaan idinla wadaagaynaa. Ma jiro wax kala tag ah oo Alibaba iyo Ayush soo kala dhex galay, sababtuna waa inay Alibaba iyo Ayush yihiin laba qof oo isjecel, qadarta Rabbi oo kala geysa iyo furninkooda oo xalaq xaq sare ka yimaada mooyaane mana jiraan ilaa hadda wax kala tag ah iyo xataa wax cadha oo soo kala dhex gashay. balse dad ayaa buubuuniyay arrintan, kuwaasi oo ka xun mustaqbalka iyo qiimaha jacayl ee u dhexeeya labadan lamaane ee aad baraha bulshada u qabsaday muddooyinkii u dambeeyay. Alibaba iyo Ayush waxay ahaayeen lamaanayaasha aadka u isticmaala baraha bulshada, waliba kuwooda soo bandhiga ereyada jacaylka ay ku kaaban yahay, taas oo hay dad badan oo xaasidiin ah amba ka xun jacaylkooda iyo farxadooda hay adeegsadeen baraha bulshada, taasi oo ay geliyeen inay kala tageen Alibaba iyo sidoo kale Ayush. arrintan waxay sidoo kale dad badan aad uga cadhaysay oo baraha bulshada isticmaala, kuwaasi oo markii ay xaqiiqada ogaadeen ku tilmaamay kuwaasi kuwo cawri iyo been adeegsanaya. haddaba saaxiibayaal waxaan idinla wadaagaynaa arrintani wax ka jira ma lahan, lamaanaha way isku faraxsan yihiin, waxay wada haystaan qoyskoodii, insha Allah arooskoodii mar dhawayto ayuu ahaa, waxaana sugaynaa awlaadooda oo ku intifaacsadaan iyo jacaylkooda quruxda badan leh oo saa ku sii waara. balse waxaan leenahay dadka baraha bulshada ku soo faafinaya beenaha noocan ah iyo inay dad kala tageen isjecel wadana jooga reerkoodana dhistay, waxaan leenahay adduunyadu waa 2 maalin oo kaliya ah ee iska daaya waxaan oo beena fuyuus dad raasanaysaan ku raasada khayrka iyo waxyaalaha wanaagga, taa beddelkeeda ayaad ku helaysaan ajar iyo sidoo kale lacagtaad YouTube ka sameeysaan intaba. balse ha ku raadin xumaan aad laba qof oo walaalihiina ah oo Soomaaliyeed walaalaha isjecel qoys wada dhistay had ka dhex sameeysaan, taas ayaan dadka kula talinaynaa baraha bulshada sida xun u isticmaala. sidoo kale waxaan leenahay saaxiibayaal idinkuna Ayush iyo Alibaba waxay dadku idinku leeyihiin waxba dhigta u dhigana, inkasta oo carabka bilaadanka qabo waxyaalo hay macnaha waxay saadaalinayso ay soo degdegto reerkiina wata ayaan idin leenahay saaxiibayaal.